qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo iyo wayeelada bulshada ka soo jeeda deegaanada xeebaha gobolka Sanaag iyo Baaqo dheer oo soo jeediyay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland halkaasoo kaga codsanayeen muddo kordhin loogu sameeyo kaal qaybinta codbixinta ka dhacaysa dhinaca xeebaha ana sidoo kale ay ku dheeraadeen caqabadaha hortaagan kaal qaybintaasi komishankeena waa inay u shaqeeyaan duruufta wacdiga wadankeena uu leeyahay laakiin yaanu ku beeskarasnaan ka Yurub iyo Mareykan iyo Ameerika laga shaqeeyo waxaan leenahay dadku waxay ka cabanayaan waxay leeyihiin hana loo kordhiyo waxa ugu yar ee arintaas laga xad gaari karana waxa weeyaan marka kharashka iyo culayska jira iyo waxba la isla eego komishanka loo tiro xukuumadda loo tiro cid walba loo tiro in 10 cisho loogu daro 13 goobooda xeelaha ku salaysnaa rabay kaararka inay qaataan ee tiimamkii loo diray arrinkaas duruuf baa ka timi 5 casho u qoondaysnayd markaanu nahay anagu xildhibaanadii goobihii qaarkood markaanu ka wareelay ama aanu tagnayba arrinkii 5 casho ee loo qoondeeyay suurtagal waayay dadkii duruufta waxa keenay dadkii oo kala hayaamay oo abaar kala fogeys komishanka waxaan ka codsanaynaa in muddada loo kordhiyo marba meel bay hariisay hadeer maanta sida loo sheegay goobihii walow dawladda komishanku dadaalay misna waxba kuma qabsoomin oo cidiba iman kari weeyay oo dadkii waa kala maqan yahay abaartaana duruufta keentay ninba dhinac buu carar marka ka geedka maanta jooga iman kari maayo waxaad moodaa inuu dardaarankii dadkaba xooli u wareegayo maanta meel xunbay ma harsanaysaa hana loo kordhiyo 10 casho duruufaha dartood maanta waa maalintii saddexaad goobaha qaarkoodna waxaan warbixinta ku haynaa inaan ilaa hadeer kaarba laga qaado dadkiina mid hadaa la leeyahay mid guuraya iyo mid god ku jira iyo mid abaartiiba aan wali xaqna aan u dhicin u yahay waxaan leenahay sida boorame abaarimaha inay waxba iska dhaafdhaafay annaga iyo boorame inoo wada kordhiyo waxa wanaagsaneyd in la geeyo goobaha uu dadku isugu guuray in loo ogolaado komishanku uu dabciyo waxyaabo badan way fiicnayd oo waa la heli lahaa lambar badan oo markaa meeshii gala oo qaata ee kaararkii 10 sanduuq duruuf adag bay ku soo beegmeen xilli abaartina laga soo kabanayo dooga roobkiina curtay waa la sareeri waayay waana la subixi waayay waana loo bixi waayay waxaanu ka codsanaynaa komishanka inay noo tixgeliyaan codsiga celiyo hargeysa waxa lagu faanahay jeer waa bari wadada yaryahay ma dad yarina ciidan noo diiwaan gashana waa fara ku jirsi waxaanu diiwaan gashan marka annagu sida waxa yar hadeer meesha noogu jira ama markii hore diiwaan galiyay waxaanu doonaynaa in jaanisna la siiyo aanu kaararka ku qaadano Ali Aadan Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo